fadhigii maanta ee golaha wakiilada jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa mudanayaasha golahaasi waxay ku ansixiyeen xisaab xidhkii sanadkii 2021 waxaana halkaasi mudanayaasha uga akhriyay xubno ka mid ah guddida ilaalinta dabagalka hantida qaranka ee golaha wakiilada jamhuuriyadda Soomaaliland iyagoo ka warramay xisaab xidh maaliyadeedka 2021 iyo sidoo kale lifaaqyada kala duwan ee markaasi uu xambaarsan yahay gudoomiyaha golaha wakiilada jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Cabdirasaaq Khaliif Axmed oo shir gudoominaya kalfadhigaasi ayaa hadalkiisa ku bilaabay sida tan waxaynu maanta hor yaalla oo ay guddiga dabagalka iyo ilaalinta hantida qaranku u soo gudbinaysaa warbixinta xisaab xidhka sanad maaliyadeedkii 2021 ee uu hanti dhowraha guud u soo gudbiyay golaha wakiilada warbixinteediina uu halkan ka jeediyay iyadoo dhammaystiran buuggeediina laydin qaybiyey page-ka golahana la soo dhigay warbixintu iyadoo dhammaystiran xilligii uu soo jeediyey hanti dhowraha guud oo qof waliba uu ka dheragsan yahay warbixinteedii iyo wixii gudaheeda ku jiray waxaan u yeedhayaa in guddida dabagalka iyo ilaalinta hantida qaranka ee guddoomiyahooda mudane Mustafa Axmed Cabdilaahi uu hor yimaado golaha akhriyana warbixintii ay guddidu ka soo diyaariyeen xisaab xidhka 2021 haddii ilaahay idmo gudoomiyaha guddiga dabagalka iyo ilaalinta hantida qaranka iyo mudane Axmed Cabdi Ibraahim oo xubin ka tirsan guddida oo inoo soo jeediyey lifaaqa warbixintii ay ka soo diyaariyeen xisaab xidhkii loo keenay golaha ee uu hanti dhowraha guud ka akhriyay golaha hortiisa mudanayaal iyadoo sabti koobiya waxaanu horey idinku soo dhignay page-ka goluhu leeyahay WhatsApp-ka si qof waliba uu ogaado xogta ay xambaarsan tahay xisaab xidhka miisaaniyadeed ee uu hanti dhowraha guud soo gudbiyey wuxuuna hanti dhowraha guud ka akhriyay golaha hortiisa warbixintii oo ka kooban qaybihii kala duwanaa iyo baadhisiha ay sameeyeen wixii u qabsoomay caqabadihii ka hor yimay iyo hay-adihii ay kala kulmeen dhibka ama aanay xisaab xidhka soo gudbin intii lahayd sabab macquul ay u soo gudbin weydayeen intii aan lahayn maadaama intaasoo dhan ay soo sameeyeen warbixintiina ay inoo soo ururiyeen guddidu arrinta kale ee ahayd isdultaagga mashaariicda fushay iyo sida ay u fushay dokumentiyadiina ay guddidu gacanta ku hayaan si fisikaal ah ama toosana in loo hortago ay u bannaan tahay waqti kasta ee guddiga aynuna codsannay inay dib ugu dhigaan xilliga goluhu fasax gelayo waxaan mudanayaanaanu ka duulayaa dib u dhacaad ku yimi xisaab xidhka miisaaniyadda oo meelaha qaarkood sida ay tilmaameen laynaga rabo inaynu buuxinno tusaale ahaan xisaabiyaha guud waxay ahayd bishii afraad inuu gudbiyo hanti dhowraha guud xisaab xidhka hanti dhowraha guudna bishii 6aad 3keedii inaga inoo soo gudbiyo waxa dhacday maadaama hay'ado cusub lagu soo darayay markii loo soo gudbiyay hanti dhowraha guud inuu dib ugu celiyey ma cadda oo xeer kama samaysna muddada uu xisaabiyaha guud dib u haysan karo marka dib loogu celiyo taas waxay keentay inay soo gaadho ilaa iyo bishii Oktoobar dhammaadkeedii inaan laynoo soo gudbin kastoo warqad cudur daarasho ah uu u soo qoray hanti dhowraha guud golaha oo leeyahay xisaab xidhkii ay ahayd inaan diinkeena 3 bishii 6aad waxaa ku yimid ama ka muuqday khaladaad sidaa darteed waxaan dib ugu celiyay hay-ado ka maqan xisaabaadka guud si ay u soo saxaan oo ogeysiintaas soo bixiyey cudurdaarkaana uu horey u soo bixiyey hanti dhowraha guud ee qaranka sidaa darteed wadayaasha golaha waxaa weydiisanayaa inaynu ansixino
حساب حسنادكي لبكم كوابيا لباتر إنه عد قلنا حوياها سمعنا وحويدينا ولايات شديدة قاعدة تاجي حل بضانة ولايات كامسي وحاول سجاري صدر بضانة هل مدنات بيدي تضبع كامسي بدومي ورمى عضين حساب حد ملكي ميزانية لبكم كوابيا لباتر يسوق بها تلورا بود اللفاقي ay soo raaciyeen guddiga ilaalinta iyo dabagalka hantida qaranka sidaas uu qaan saxay waxaan ugu mahadnaqayaa guddiga ilaalinta iyo dabagalka hantida qaranka oo waqti aad u badan geliyay muddo kooban warbixinta ay u baahneen ku keenay waxaan wadayaasha markale ku adkeynaya berrito inay waqti aad u horeeyo isu nimaado wadayaasha maqanna tallaabooyinka aynu ku ballanay inaynu qaadi doono aad u mahadsantii waa xilliga